السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب سيدة السلام يا صدوا هذا ملك السجوكتان. عن ما أنت كير حضر لنا وحيرة كيسكي فوضى تحليل بينك وحير كحضر لنا ولماذا وحير كتري قيبتوت طبعا ربعنا عن إيدو تصف ولماذا ركم إذا صفي عن الله ما شاء الله سعادة في عن ففاهي qaabka macnaha dhiig islaamku uu xun yahay qaabka macnaha loo duudsiyo qaabka macnaha loo qariyo waxaan rabaa inaan sheekh meeshan idiin soo bandhigo insha Allah ila daawataan bal si macnaha uga hadlay barakallahu fiikum ana sheekhaas ilaaha barakeeyo cumrigiisa Allah dheereeyo bal ila daawada insha Allah diil haraado dhiig islaamku uu xun yahay sidii qof dilo la duudsiyo uu xun yahay si qof in la qariyo uu xun yahay sida macnaha illa iyo xad illa iska ilaaliyo haboonta insha Allah diil haraado daawasho wanaagsan gabadha hadda arinteeda ay caalamka oo dhan noqotay waxaan leeyahay ma aha kaligeed waxa dhintay waa sax laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmad buu ka leeyahay gabadhaas Soomaalida ah ee muslimada ah in dhiigeedu maanta uu noqdo waxa arintan qarxiya inuu noqdo oo siyaasiyiintii kashifa oo mas'uuliyaadka kashifa oo dulmiga kashifa oo dhiig badan oo muslim oo daatay kashifa ayaa ilaahay ka leeyahay ee ikraan ma aha kaligeed wax dhintay laakiin xikmad baa ilaahay ka leeyahay waxaan leenahay arintaas waa arrin weyn oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu daba joogo walla inaanay noqonayn arrin ciyaar ah oo lagu kala tago boqolaal culimo ah zuhaad ah mas'uuliin ah wasiir ah xildhibaan ah ما قاعد انت ديقود دولك ku daatay oo aan waxba laga haynin maxaa dhacay xikmadda ma isweydiisan maanta inuu ilaahay kashifo oo banaanka soo saaro dilka gabadha yar ee Soomaalida xikmad baa ka dambaysa waxaan idin xusuusinayaa inay dhacday zamankii nabiga kaleey salaatu wasalaam nima saxaaba ah oo ciidan u diray si ibn Maajah sahih sunankiisa sahih lagu wariyay xasan xadiis xasana inay baxeen niman gaalaha bay la dirireen markay la dirireen baanin markii waranka lagu keenay laba nin baa waranka ku keentay markaasuu markuu waranka arkay ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah nina waa ka istaagay nin baa ka istaagay markuu saasir ninkii kale warankii ku kaxay warankii ku kaxay soo la ilaha illa way soo noqdeen qisadii baa nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam وكل النبي عليه الصلاة والسلام ما واحد شيء يسوي لا إله إلا الله له مياد شيء رسولك الله وكوك بهنا ورما واحد شيء يسوي لا إله إلا الله يه وصدق صدق أسامة أكله رسولك الله دم بدافع الله يوديه وكان مسلم النبي عليه الصلاة والسلام ما واحد شيء يسوي لا إله إلا الله يري مياد شيء سيدي بعد ninkii ayaama kadib uu dhintay waa la xabaalay markii la xabaalay ayaa subaxdii waxa la arkay meedkii banaanka yaal waxay siraahdeen waxba bahal baa qoday waxba qoday meel wax kale ku xabaaleen xabaashi bay dheerayeen waa ku celiyeen subaxdii waxay arkeen isagoo banaanka yaal mar saddexaad ciidan bay dhigeen ilaaliyaha caaw oo dab halkan ka shita oo bal qabrigan waxa ka dhacaya fiiriya هردون بهذا قاضي نمكي ميتكي وبنانك يا الله صباح الارك النبي عليه الصلاه والسلام الله شيء وحو يري عليه الصلاه والسلام دولك waxa ku jiray buu yiri ninkan dad ka shar badan baa dulku ku jiray oo dulku aqbala laakiin ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu idin tusayay xurmada uu leeyahay dhiiga muslimku ciyaar ma gabadha hadda arinteedu taagan tahay ee dibka weyn ka cisay qadiyadeedu meesha ay marayso aad ogtihiin meel cid ma dhacayso waxay ila tahay dhiigaas in ilaahay daba socdo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu daba socdanaha cid badbaadin karta ama hor istaagi karta ma jirto xukaamta Soomaaliya waxaan leenahay gabadhaas iyo ehelkeedii waxay ramsi u tahay tusaale waxay u tahay ملايين سومالي ودمتay dhulka hoosteeda ku jira bay arinteedu ka kicinaysa cadaalad hal lagu xaqo hal la taxqiiqiyo hal la baaro
ciday ku cadaatana maxkamadeeda hal kama siiyo cid hor istaagtaa yay jirin cidii hor istaagtaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inay hor istaagayso ha ogaato waa cid ilaahay la dagaalamaysa cid hor istaagtaa dhiiga ikraan ma aha dhiiga gabar kaliya oo meesha ku dhimatay ma aha oo ma la weysan yahay haday dhimatana ilaahay uu naxariistay ma aha waa boqolaal kun oo Soomaaliya oo dhiigoodu maqan yahay bay ramsi u tahay bilowdayna u tahay lacalla inay noqoto meesha qalbiga Soomaalidu ka soo noqon lahayd taasna waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala gabadhaas iyo ehelkeed iyo dadkeeda ooynaya cadaalada u maamulo hana la baaro nabigu kaleey salaatu wasalaam markii laga shafaac qaaday gabar reer Quraysha oo waxaday oo gacanta la rabo in laga gooyo oo dadkii uu dad ugu jeclaa u tageen oo Usaama u tagay wuxuu ku yiri atashfa'u fi hadd min hududillah inta wajigiisu isbedelay nabiga kaleey salaatu wasalaam war ma had ilaahay ayaad doonaysaa inaad ka shafaac qaado oo aad hor istaagto saas darteed ayuu ku yiri والله النبي عليه الصلاة والسلام كما خصبنين إنه بارتو لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها عدالة المسلم ساسوي عدالة الإسلام ككتاب كإلهي اللي الله يهي النقضة وقلبي إنه أخشوع تاسوي عدالة قفك وين مجرى قبل النبي محمد كانت تقول لها هذه ما أنت واحد لها حاشا لله إني حد لكن وتصالح سيد صومالي تراهو ويش قال ديوها ku quuso marka taasna fariintaas ayaan u dirayaa madaxda Soomaaliyeed waxaana leeyahay ilaahay ka baqa oo dhaxdiina islaaxiya nagana xishooda oo ilaahay ka xishooda oo dadka adduunka jooga ka xishooda wax aan dawladnimo ahayn oo sharaf ahayn oo magac noo ahayn oo adduunku nagu qasrana ha samaynina wixiina hoos u samaysta haddaad samaysanaysa إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا أصو النقضة أو علماء كتابك إلهي كوكلا بحا أو محكمة إلهي إمادة هدا ديدان صوماها فلا تأس على القوم الفاسقين أيائد سبيسا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين اللهم أصلح حكامنا وحكام المسلمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة لك من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة دعوتين صومالي إلهينا كعب صدق اسكدا فولينا dadka xilka sarhaya iska dhaafa dadka macnaha dugsiisan dhigo qarnaysan leenaysan waxaas wax fiican ma insha Allah waxay dirjinaa khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fadlan barnaamijka laagi saara subscribe ma isaara next video